iskahorimaad xoogan ayaa maanta wuxuu ka dhacay dugsiga tababarka ee General Golden ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkaas oo ahayd xaruntii ay Imaaraadka Carabtu ciidamada ku tababari jireen. Wararka ayaa sheegaya in iskahorimaadka uu salka ku hayo baabuur dagaal oo la doonayo in xerada lagala baxo iyadoo ciidanka xeradaasi ku sugnaana ay diidan yihiin. saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa la sheegay inay xerada tageen iyagoo doonaya inay kala soo baxaan gaadiid dagaal hase ahaatee waxaa ka hor istaagay ciidamadii ay Imaaraadka tababareen oo iyagoo hore halkaasi u joogay isla markaana loo bixiyay dhawaan guutada Daljir kadib markii ay la wareegtay dawladda federaalka ee Soomaaliya. degmada Hodan iyo sidoo kale degmooyinka kale u dhadhow ee ka tirsan gobolka Banaadir waxaa laga maqlayay rasaas aad u xoogan oo isdhaafsanayeen ciidamada halkaas ku dagaalamay. Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah uga guuray xeradan iyagoo uga tagay gaadiid dagaal kuwa xamuulka booyado biyaha iyo sidoo kale ambalaasyo iyo waliba agabyo kale oo loogu talagalay ciidanku iyagoo hore ay u tababareen. sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa halkaasi waxa ay kala soo baxeen gaadiid dagaal oo iyagu lahaayeen waxaana lagu qaadayaa markab ay leeyihiin dawladda Imaaraadka Carabta kaasi oo taagan dekada magaalada Muqdisho kaas oo lagu magacaabo Jabal Cali. tan iyo markii uu soo baxay khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawladda Imaaraadka waxaa soo badanaya xarumaha ay banaynayaan Imaaraadku ay hore ugu sugnaayeen halkaas oo ay ka mid tahay isbitaalka Imaaraadku ay lahaayeen oo ku yilay degmada Cabdicaziis. waxaana sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in Imaaraadku hadda ay qorsheynayaan inay baneeyaan safaaradooda ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Axmed Saciid Axmed, Cable TV, Muqdisho.